tiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi uu markasta xooga saaraya sida uu dakhliga dalka kor ugu qaadi lahaa ayaa waxa uu dadaal dheer geliyay in mas'uuliyiin khibrad iyo waayo aragnimo u leh habka wax soo saarka maaliyadda u magacaabo goobaha dakhli ururinta ama kastamada ayaa waxa xusuusmada in muddadii xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi ay jirtay ama uu xilkaayay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi isla markaasina qiimeyn lagu sameeyay goobaha dakhli ururinta ama kastamada dalka uu kaalinta koobaad galay kastamka magaala ganacsiyeedka degmadaasi Wajaale iyadoo ay sabab u noqotay dhiiranaanta iyo daacadnimada qaranka وهايو معمولها كاستم كدقمداسي وجاله مدن عبد الرحمن أحمد آدن isagoo ah maamul ugu horeeyay abid Soomara magaaladaasi Wajaale si daacadna ugu shaqeeya qaranka Soomaaliland iyadoo muddada uu xilka u hayay wax weyn iska bedel habsami socodka kastamka degmadaasi Wajaale dhinaca kale qaar ka mid cuqaasha iyo dhalinyarada ku dhaqan degmadaasi Wajaale oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga ee Som News TV ayaa waxay ka hadleen habka qaranka ugu shaqeynayo maamulaha kastamka degmadaasi Wajaale iyagoo xusay in muddadii uu xilka hayay uu kor u qaaday dakhli ururinta kastamka magaaladaasi Wajaale sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in maamulaha kastamka degmadaasi Wajaale mudane Cabdiraxmaan Axmed Aadan uu kaalin ku lahaa baabuurtii laga soo biliqaystay magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya intii uu biliqahu ka socday magaaladaasi Jigjiga isla markaasina uu juudi dheer geliyay sidii aan loo kala ka hadlayaa Wajaale maamulaha kastamka Wajaale wuxuu mutay sharaf weyn wuxuu kor u qaaday shaqadiisii wali ma aragtaas oo maamulaha soo martay mid la mid ah shaqadiisii kor buu u qaaday dadka si fiican buu la dhaqmaa dakhliga dawladda si fiican buu ilaaliyaa meeshana uu nooleeyay ninkani baa ma moodaysidba ni waxaad moodaa dibadaha ka yimid oo caalamka baanaasha ka soo shaqeyn jiray iyo kastamada cashuuraha ka soo shaqeyn jiray moodaa oo reer Yurub ama Mareykan aad moodaa dakhliga ka soo talaaba ee biyaha sharaabka iyo alaabta Itoobiya naga soo talaabisay ee maamulayaashii kale iska cunayeen cashuurtooda dawladdu ku xareeya bank ku xareeya dawladda qadada dawladdu ku xareeya qolkaan ninka waa nin aad in aan loola socday dawladdu aad ula socoto oo qofka sharaftiisa la sheego ya oo anigoonan ku u dhawnaan hay oo arkaan shaqadiisa iyo maamulkiisa wayna la socotay oo aadna kor buu qaaday korna way ka muuqataa dadnimadiisa iyo iibaankiisa iyo shaqadiisa iyo waxa bilaa dawladdu hay leedahay uu ilaalinayo iska xireynayo iyo shaqadiisu si fiican u maamulayo ya sidaasaan nilaah ninka uu soo diray Wajaale oo kastamka uu soo diray waa nin Ilaahay uu soo diray waa nin simcadii maaliyadda iyo Wajaale kor u qaaday ninka noo soo dirtay waad ku maasan tahay waa inaad ka warhayso waa inaad sharaf siiso oo mutay yaan ka codsanayna waayo annagu waxaan nahay oo dadka deegaanka dadka iska shaqaysanahay waxaan aragnay shaqadiisii iyo sidoo wax wado iyo maaragtay wax jira ma ahay istabiyar laba istabado la isku talaabay maanta waa dawlad jirta way kastam marka wasiirka waxaan ka codsanayaa inuu ninka bilad geesi siiyo hambaliyeeyo ka warhayo yaa wasiirka maaliyadda ka codsanayna ku Ilaahay noo soo dirtay adiguna waad maasan tahay magaalada ganacsiyeedka degmada Wajaale ana ah dhalinyarta degmada waxaan maanta xagan kaga hadlayaa shakhsi kamida xukuumadda maaragtay dawladda gaar ahaan qaybta kastamada ah maamulaha kastanka mudane Cabdiraxmaan oo ah shakhsi aad u firfircoon oo hawlkar ah kaasoo ku amaanayno hawlkarnimada iyo dhiiranaanta uu shaqadiisa mar walba u dhiiran yahay taasoo aw kastam maaragtay maamuladii kale ku horeeyay waxyaabo badan oo indhaha dusha ka marin jireen ay shacabkana maaragtay meel kale u tilmaami jireen isagu uu xaqiiqda dhabta ah ka soo saaray ya waxyaabaha soo kamid ah waxyaabo kontrabaan ah xaqan dawladda maadaama meesha uu joogay tahay meel xuduuda waxyaabo badan oo ka soo talaabi jiray waddanka dariska danahay si fashar ciidan maamuladii hore u sii deyn jireen isagu intuu waajibkayga ka maray lacagtana maaragtay wixii dawladdu ay ku leedahayna xaq u lahayd qasnada dawladda ku xareeya waxaan ka dareemay korokaca maaliyadeed iyo maaragtay dakhliga kastanka magaalada Wajaale
kor u soo kacay haddaan nahay dhalinyarada Tog Wajaale ku dhaqan waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa shakhsiga maamulaha Cabdiraxmaan ee hawlkar ah oo nin muwaadin oo dalkiisa u dhashay waxaanu leenahay halka hawshaada ka sii wad waan ku soo dhaweynaa haddaan nahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Tog Wajaale markastana waxa haboon shakhsiga hawshiisa u firfircoon ee hawlkarka ah in shaqadiisa lagu amaano wabillahi taasoo ah ma aragtay haykalka shaqaalanimo ee maamulka kasta uu leeyahay shaqaalaha haday tahay dadka ka shaqeeya oo aan noqday dad isku duuban oo nidaam iyo kala dambeyn yeeshay walow ay maaragtay jaadad badan oo sifo sharci darro ah maaragtay jeebadahooga maamuladii hore u soo gali jiray أو تاو ماشي مارتي وسو النقطة الشخصية كلية حكمية ولو إنه وين ما دولة ديجان كنا يدرس كنا هاي شقاقة كذا عادي ما المدويد يا والله صبح صديق جديد أدفر بدن يا تاسو ها شخصية كلية إيه ما عرفتي كوقف فرعنا مارتي شقاق دتك دولة وقتر دتك دولة مثلا مقالنا Tog Wajaale تاسو هبين يدرر وتجنا سدو هنتي دال صوب بوبي وما عرفتي وتوجين لها ونقعت الدولة لقلا صبح سدي ودي بيقول لها عبد الرحمن هذه أدبن كوسول وإنه نقرب تاجن هاي يوسف حقيقة حتى إنه نهاية دليل Tog Wajaale أما بشدي Tog Wajaale وحنا واد سود وين إنه نتاجر سناي ما مخصص كاستمك Tog Wajaale وحق دليل أقوياء هنا فرعون هولكرا وحق لقو أمني كرو يحقبت كوجا يوم كرنسا أن أقون تولا marka haddaan nahay anagu bulshadii Wajaale iyo dhalinyartii aad baan u taageersanahay maamulka kastamka cusub takala waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka maaliyadda aad baan ugu mahadnaqaynaa sida uu u soo xushay ragga dhalinyarta aqoon-yahanka wax qabad kale kastanka degmada Tog Wajaale oo wax qabad aad muujiyay waxaana kamid ah wax qabadkiisii ugu horeeyay wuxuu naga qabtay anagu haddaan nahay ganacsatada yaryar sharaabkii Itoobiyaanki iyo biyo Itoobiyaanki ee saddex laanta soo gali jiray ee maamulayaashii hore awoodi kar waayeen inay qabtaan sababtoo maamulayaashii hore waxaan u malaynaa shaqo ku lahaayeen oo lacagta ka qaataan jeebkooda ku shuban jireen laakiin isagu caadi buu cashuuraa wax walba halkiisa uu dhigay takalana qoliyaha diska ee nooga yimaatay Itoobiya waagii hore iyo gawaadhida lama cashuur jirin hadda laakiin waa la cashuuraa takale uu ku mudan yahay in lagu bogaadiyo gudoomiyaha kooxda xafiiska oo saacadii la tigaba laga heliyo goobtiisa shaqo kuwii hore haba yaraatay laga ma heli jirin meel soo xadir jirin aroor gal hore gal nababa laakiin isagu had iyo jeer waa jooga xafiiskiisa waana ku helaysaa waxaad ugu baahatay ay shaqaana uu ku qabanaya aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka soo magacaabay wasiirka maaliyadda ee soo magacaabay ee uu soo gartay ka noqdo kasanka degmada Tog Wajaale inta uu joogo dhaqaalaha kastankeena kor buu kacay حقي دخل جدولة وحد كده رامي ساشقة يصير جونا ضلوات شرايو تجمع Tog Wajaale كستانك وقاعد بنوهم مليان الأوسيكة سجنوا حالنا شقة السيبو قدر عبد الله تلفزيون عالمي سمني يوستيفي دقمة داسي Tog Wajaale